reebudna waxay ka xanaaqsan yihiin maxaad ogaadeen iyo Jubbaland ra'iisul wasaaraha siisay oo waa xumad xagga ka timi madaba khaatuma soo biirto maamul goboleed noqotay ma laga yaabaa inay sii fogaadaan haddii reer khaatumo ra'iisul wasaare loo magacaabo oo ay sii xanaaqaan balantaas oo kale oo imaan karaysa haddii danaha dawladdu soo galaan khaatumo ra'iisul wasaare loo magacaabo anigu hadda fikirkayga anigu maalin waxaa reer madaxweynaha Puntland madaxweynaha khaatumo inuu bedelo madaxweynaha Puntland waa firdhiye markii la Puntland xataa sababtoo ah Puntland iyo nimanka ma jeerteen oo ma dhisna inay qaranimo Soomaaliyeed wax ku helaan iyo magacan daaro xataa waa ka dhis markay dan leeyihiin ku kiciyaan sababtoo ah ninka dhul wadanka ra'iisul wasaaraha war hadduu madaxweynaha xun yahay ra'iisul wasaaraha la shaqeeya waayo ra'iisul wasaaruhu waa isku xidhaha wasaaradaha iyo madaxweynaha wax kala ma hayo hadee wasiirkii dhanna ee arrimaha gudaha ma jeerteen maanta burger watagay marka qaranimada la sheegayo waa been marka waxaan leeyahay nimanka ma jeerteen sidani arrin maaha haddaad xasan sheekh diidantiina madaxweyne ra'iisul wasaaraha xumaysaan ma ahayn inaad ra'iisul wasaaraha markastaba la shaqeysaan bahay axmed madoobe waxba ka dhaxayn karo waa laba nin oo isku jifo oo ogaadeen bay yihiin oo bari waxba la isku qabsan karaa hadday taliya tahay hadday tahay ilaahay ku roonay xil kale waxba la isku qabsan karaa laakiin nimanka ma jeerteen inay maanta ra'iisul wasaaraha xamse la shaqeyn waayaan waa godob u taalo way anagu dhanna waanu sababta soo garmaysa laakiin de sababta kale waa hunguritaan garan maan waxay doon waxay xil reebud la uga dhigi weeyay simple ba of course way taana qaran Soomaaliyeed ku shaqeyn maayo okay haddii tusaalahan madaxweynaha inaad adduunka waxa lagu wadaagaa tusaalahan maanta wadamada joogno horumar Yurub wadanku wuxuu ku dhismaa power sharing waxdeeda gobolada hadda Suudaan waxa isku leeyahay waay Suudaan waxa isku leeyahay laba taliye iyo ku-xigeenkiisa isku leeyahay xagee ka soo kala jeedeen koonfur iyo waqooyi hadda wax simple yar baa ku soo darwiisho maanta ninka Suudaan ka taliya iyo kan la dagaalamaya Janjawiidka wata waa labadii taliye shal isku xigay maxay ku yimaadeen awood qaybsiga wadanka koonfur iyo waqooyi ku yimaadeen maanta taliyaha markii dawladda Soomaaliya la eego taliyaasha xagee ka soo jeeda taliyaha maxkamadda sare waa madaxweynaha jifadiisa taliyaha ciidanka waa madaxweynaha jifadiisa nafsuugida waa mid yar oo meelaha shalay maleeshiyaad macuusle dhex array xawaalaha miskiinaha qaran meesha kama jiro wax qarana meesha inaad ir kama jiro annagu haddaan nahay dad fadireed hadday dawladda Soomaaliya la shaqeyn weydo Soomaaliya si wanaagsan waxaan naga go'an inaan annagu dawladda Soomaaliya halkaas ka shaqeeyo way shabeel oo dhalada si kan way anigu dadka waan ixtiraam adiguna waxaad ku dhacday dirtu waa inay wareer khaatuma maamul goboleed samaystay daarood ka digay dirtu maamul goboleed ha samaysto haystoonato oo shabeellada hooseba sida la saanood oo kale baydhabo ka jar eeg shabeellada hoose haddaad u badan tahay adigu baydhabo ka jar oo lafta gareen ka jar oo maamul ku dhawaaq oo dagaalan reer khaatuma Puntland ka soo go'ay Somaliland ka soo maamul goboleed sameeyay marka dirtan reer khaatuma maamul goboleed leeyahay dirti weyneedna maamul goboleed male gudooyo xasid dood maaha madaxweyne xasid dood maaha niyo shubaad maqlaysaa inaad waxa weeye de kulli qofba halku marka asaga maraysaa garanaya adigu taalahan haddii aad maanta khaatumo adigoo dhulbahantaa ummadda kale taas ku dhisataa adoo dhulbahantaa tir khaatuma aan ahay garatay inaad kaliya taagnato maamul goboleed noqoto anagu wili taa kuma aan fakirin inaan reer Soomaaliyeed nacay ku beero waxaan ku beero laakiin waxaan ka fikirayno waxa weeye hadda salaam waxa tir Axmed ma aqoonsan ana Axmed madaxweynaha Jubbaland ma aqoonsanahay maya wala dawladda khaldan Axmed ma dawladda khaldan ويسكو no inaad irmaya dastuurka wuxuu dhigayaa maamul goboleedadu inay ka madax banaayeen dawladda dhexe xagga doorashada iyo systemka Axmed Madoobe baarlamaankiisa doortay waa xaq weey haya no inaad dhageyso inaad ano xabad la hor fadhiyo hadana aqoonsan aniga ogoleen oo xabad la hor fadhiyo ayaa aqoonsan inuu sharci yahay waayo kan ku dhagan baan sharci ahayn sharciga ku dhagan maamul goboleed madaxweynaha la doorto maxay tahay waa la doortay yes waa la doortay hay asiga ma kaliya baan tuu yimid ana fadhiya waye maya Madoobe waa sharci weey maya hadday noqoto Axmedoobe dhul ahaan iyo maamul ahaan intuu ka taliyo waa tusaale u siinaya hadda waxa tir maxaa maamul goboleed samaysan weey Axmed Madoobe asagoo Kismaayo fadhiya ciidanka Jubbaland ninku ku aamin waa nin gaadsana waa nin biimaala oo gaadsana maxkamadda sare Jubbaland ana haya wasiirka ugu muhiimsan arrimaha gudaha aniga hayay waa eeg macnaha meeshu marka aan deganahay waxaan ka noqonaya laakiin haddaan wixii diido ma aha inaan reer Soomaaliya culaadiyo inaan dhaho anoo reer hebela no dawladda Soomaaliya noqotay dawladda Soomaaliya hadday dadka direed hadday salahan أو دولة وحكوا ذين المعمول كذا
waxa la isku haystaa maaha adigu madaxweynuhu kaliya ma madaxweynaha anigu waa qaadan karaa haday Soomaaliland timaado haday sii yimaadaan laakiin kan hadda jooga ma u dhisan yahay si dowladnimo waa maya taliyaasha ciidamada ummaddu moodaleeyeen waa maya taal laftirkeeda waxa weeye asagu halku dowladda u yahay hamaro ana hadda runta ku sheegaya ciidamada shalay fadhiyay aadan yabaal 3,000 bihaayeen saddexdaas waxa hawiye ka ah waxaan 300 dhanay ciidamadii kale dhan baa ka baxay oye haddaan ku leeyahay Soomaalida kale dirir raxweyn bihaayeen muwaalan tahay way ciidamada dirir raxweyn bihaayeen oyaga bas kaga baxay oo diidanba inay of dagaalaan course way ka baxeen maxay ku dhimanayaan mikhayaal bay ku dhimanayaan waxay ku dhintaan ma garanayaan midda kale anaaba hadda ha u dhimanina inaad raana ku sheegaya dalka Soomaaliya anigu hadaan nahay dir majority baan ku nahay haday dawladda Soomaaliya waliba hadda cadaadiska ay Soomaaliland ku wada anagu sii cadaadinayna cadaadiska ay Soomaaliland ku wado ayaanu sii cadaadinayna haday awal baba ixtiraamayno waxa la Soomaaliland bay ogoshahay baldaaya laakiin waxaan ku sheegayaa today dal iyo dibadba waxaan ballan ku qaadayna inaan laabno dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ma aha dawlad kale nimanka hawiye tolka nahay tolkay weeye laakiin madaxweynaha xun iyo fikirkiisa xun iyo wixii la socdo xun buu nasiibeynaa Rizal Xamse waa taageersanahay way Xamse waa nin Soomaaliyeed nin xumaan ka shaqeeya ma aha laakiin dadka ka xun waxa la nimanka Puntland Xamse la shaqeeya Jubaland waa Xamse la shaqeeysa wanka Rizal la shaqeeya ana hadda lillah waayo Rizal waa sig dambi male waxa loo la shaqeeyay waa adab dar Puntland gudnimo ku tahay inay ninka bala xumar Rizal dalka dawladda khaatimo Jubaland waa state baan u aqoonsanahay laakiin madaxweynuhu waa sharci daro oo xeerkii buu dhinac maray doorashada sunnihii doorashada way dawladda Soomaaliya wayna witness ka noqotaa waxaan ogaataa waxa meesha ka soconaya hatta hadaysan door ku lahayn waa inay la socotaa wuu ka qarinaya isaga isku caano shubaya marka lama shaqeynano haddaan reer khaatimo nahay ninka dictatorka Jubaland haysta waayahay waxa Puntland waxa weeyaan awoodaysan lahayn bay isbidayo wixii ba habeen iyo maalin marka daruusha ma qasha ma gabar siyaasiyiin oo inala joogtaan waxaan rabaa inuu yidhiyo daruusha ana hadda ku sheegay hawiye iyo dir waa laba reer walaala hawiye waxa anaga u sheegna kaliya inay ku shaqeeyaan way hadayna ku shaqeeyna beerkan ka laadin hataan ku sheegay hawiye aqli ma leh hawiye aqli ma leh hadaa tiraado aniguna aqli ma leh aan ku iraado maxaa kala soconaya marka dama wallahi hawiye wallahi ya amina qofka hawiye dhow madaxda mala wax barataa Cabdiraxmaan ma Cabdiraxmaan warsame iyo muxuu ahaa kan cayrka muxuu ahaa kan dadkina kala ma taqaan dib ka jira moogta maya meesha waxa ka jira waxa waaye warsame Soomaaliland qofku wuxuu rabo maaragtay inuu maqlo fahmo Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame absolute ninka soo kale waa nin wixii update dad badan oo update weylay laakiin waa intooda wax barataan u maleynay laakiin dadka shacabka rag iyo dumar waxay ku hadlayaan wallahi aan midhigo qoreen 12 maanta xigmad ma jirto ما meesha geel raaci ma moogta siyaasada ka socota meesha geel lama raaci moogta waa eberko meesha siyaasada ka socota inteeda kale meel walbana waxa jiro luqad looga hadlo aduu taada aniga waa sport China hadda la shaqeeyo company-ga ka shaqeeyo ee madaxweynuhu oo abgaala oo dhalinyaro fariida wuxuu dhaama taqaanaa waa sport China markuu daalo ayuu arkaya gaalo shaqadii gabayo oo sport ana waa sport China ما marka nama yahow ma gabadhina u dhiibana okay gabadh u dhiibana hadda muqdisho magaalada caasimada Soomaaliya muqdisho hawiye ma laha hawiye u badan Soomaaliya yiraahdo nin walba geeliisa haska ilaashado hadal yar oo waxaan ku dir xanafku hawiye ma oran karaan ana hadda ku sheegay waa anigu saan doonaan ayna ku horreeyay waxaan naga update garaysaa madaxweynuhu adoo raaleeyahay anigu ali yabaalkan iyo aadan yabaalan iyo balcad baa la marayaa iyo waxaan anigu fool firda kuma yahay walaal muu noo gal nimankan Arsenal shuma magaalada caasimada ay soo kubaareen inta dhul badan soo qabsadeen bal hatta dadkan yar noo sheeg halka anigu waxaan dadka uun baa ka maqlayaa focus ma saarin magaalooyin bay inta qabsadeen sida aadan yabaal oo kale bay calankooda ka taagan cashuur ka qaadayaan miyaa iyadoo duhurkii horta hadda nimankan lagu sheegayo aadan yabaal oo kaliya ma hayaan waxay hayaan gobol Shabeellaha dhexe kala badh ilaa laga gaar xaradheer joogan nimankan hobiye saarayeen hadee
maamulka galmudug intuu ka talinta ayuu ka taliyaan baa badan way markii la eego xagga nimanka iyo dawladda markii la eego laakiin cilada jirta maxay tahay cilada jirta waa dawladda way tusaalan siinaya meesha masaajidka dawladda waxa kale dadkoo dhan baa arkay meesha dawladda ma jirtee meesha waa dawlad dhimane nimanku ma dhul fara badan bay maamulaan oo dib u qabsadeen miya bal taasaa muhiim ah koonfurta Soomaaliya nimanka ayaga maamulo hadda markii uu yiraahdo ninka shalay Axmed shalay kii lafta gareen halkuu ku dagaalay waa maanyafuulka baydhabo wuxuu jirtaa aad cadeynta la sacaano u jirto moogid oo 30 kilomitir taana tagaytay maanyafuulka 30 xataa ma dhanna marka maanyafuulka soo degtay guryaha magaalada baydhabo aad arkaysaa way halkaas ay fadhiyaan ma garatay intii kale way soo qabsadeen intii kale way joogaan ciidamada Itoobiyaana magaalada baydhabo jooga intaas ay u soo gari lahayn laakiin xaqiiqda waxa weeye dadka Soomaaliyeed adoo wata dhibka Soomaaliya haysta sama taqaana nimankan Itoobiyaanka oo kale ama ciidamada sheeyuhu hal kamaan deelayeen oo meel bay arminkooda laga hay laakiin dadka Soomaalidu waa dad wada dhilaya nin iyo naagba oo fruuqa qoftii walagu dhex jiraatay ma wale meel laga ku arminba laga hayo hatta anu qolka Soomaa maamulayo qofkan hayaan tuuri karaya qofkan hayaan soo qaban karaya Soomaa qofkan rabo dadkan Itoobiyaanka ama dadkan adduunku waa sida qofba awood haysta inagu laakiin saamanihin mana ismaqlano tee ay jirto waxay taba taqaana darwiisho haddii maanta Soomaaliya horta dawladda federaalka horta qofka markuu hoggaanka maskaxiisa caadi tahay uu hoggaanka qabtaa tusaalahan Xasan Sheekh Maxamuud waa ninkii laga baxay ku meel gaarka dawladda ku meel gaarka maalintii laga baxay waxa la rabay inuu gogol Soomaaliyeed digo inuu ummadda Soomaaliyeed isugu yeero diriya daaroodii hawii digil ummadda oo dhan bariya walaal kaalaya maanta dawlad baynu nahay waynu ka baxnay ku meel gaarka adeeg waynu ka baxnay ku meel gaarka saad dalka u wadaagi lahayn talada dalka aan wadaagno aan qaybsano taliyaasha ciidamada aan wasaaradaha muhiimka qaybsano ninka maanta waxaan ku dhul baxantay asagoo taliya ciidamo ah shabeellada hoose ha maro Kismaayo ha tago baydhabo ha tago maxaa maanta taliyaasha ciidamada ka dhigay taliyaad maleeshiyad beelad ka dhigay waa taliyaasha ciidamada dalka u sareeyay maleeshiyad beelad abgaali macuuslee la sawiriyay maxaa ka dhigay waxa ka dhigay hoggaanka unu kaale hoggaankii xumaan wuxuu sii baday nacayb maanta intay Puntland xataa saatay dagaalka ku jirto ma jirto dawlad xataa ma artayeen u garaabaysa ma jirto iska daa inay taageerto inay wax siisi iska daa inay xataa caalamka u sheegto inay xataa af ka sheegto laga maya markana dawladnimo meeshan kama jirto ma meeshan dawlad ma jirto ay agreed boqolkiiba boqol ninkan horta qoslaaye wallaahi iyo billaahi iyo tallahi teerabkii hore madaxweynaha anu siyaasadiisa iyo tanba waan la yar socdaa ninkan qoslaaye nin hab dawladeed war farmaajo waa laaba dhaamay farmaajo nin been badan oo munaafaqa oo ciyaala suuq waxa oo mid dhul taala oo bilaaya oo hooyadii dhashay oo gabadhu baxata ahayd oo cadar la oran jiray hatta nafru ma hayn dib jir buu ahaa munaafaqa laakiin qof go'aan qaadan karayo hatta qofka wax dili karaya warninkani waa nin jilacsananaadeen ninkani waa nin kiiskii MOU-dii barnaamijkii Somaliland iyo Itoobiyaanka iyo Abiy Ahmed iyo Masarti iyo wixii basuu hatta Masarti buu khiyaamay ninkani nin go'aan la maaha waa nin jilacsan waa nin masaajidka intuu go'aaweeso dadkani dad dawladnimo hawiyuhu dad dawladnimo loogu talagalay maaha dadkani dad dawlad loogu talagalay maaha walow dirtaaba hala tijaabiyo ama daaroodka bahasha lagu soo qadiyo dadkani inaadir waa dad dameero dadkani hawiye futa madoobe inaadir waxaan dawlad waliyo dawladda daarood ha looga baydo hadii doona dadka xasuuqeene dadkani dad dawladnimo loogu talagalay maaha ama dirtaba hala tijaabiyo ama raxweynta maanta hadii dir loo dhibo maleeshiyaadka hadda afka doo waxa ka dhiganaa hokadiisan ku sameeyna sida hadda ku Soomaaliya maya dirtu waxa laga yaabaa inay maskax fresh maya horta laba tijaabin ba laakiin waxa laga yaabaa waxa khayrka ma soo sharkaya ama raxweynta la tijaabiyo ama dirta la tijaabiyo maskax fresh iyo siyaasad dad cusub baa dawladda ku soo biiraya laakiin nimankan qofkan masaajidka maanta jimcaha istaagaya shaatiga weyn ka weynaya suuqa bakaaraha lagu iibiyo intuu iska soo qaato daqiiqadii mar afka cadeynayo qoslaya inaad nimankan argagixisada waddanka wax horeen karayo Puntland xataa ma maslaxayo oo Jubaland ma maslaxayo oo lafta garaan ma wato oo khaatimo warkeedu ma cadda ra'iisul wasaaruhu baa watee
وروحنا قف ما هنيو قف ما هنيو ودك ورشيخ شريف فدامي الشيخ شريف نين ددك لما عاملaya oo شيخ شريف yaqaan buu ahaa لكن كانوا markii ma la eego salahan xasan sheekh waa kii maaliyo heshiiska la galay Masar laakiin xasan sheekh maxamuud heshiisku la galay Masar waxaa ka wanaagsan Masar ayadoo nimanka Arsenal heshiis kaga baxay Arsenal waa niman Ethiopia cadowgooda war yaabee wuu kaga baxay waa la wajiile Ethiopia la wajiile meel lama raaxo kaansadeen ee program ka xareen ee waliba u taariimay ee ugu tagay dhulkoodii isagoo guul daradii wada iyo siyaasadda ku soo jabay nimankii Cabdicasiis Siisi iyo dawladda Masar way yaabtay waxay toor waa maxay waxaan faraha la galay waxay doonaysaa siyaasadda qarniga soo socota la difaaco military iyo xoog iyo wayba yaabeen waxay dhahay waxaan lama aaminayo way reliable wax la isku haleyn karayo adeer meeshan barkanikan waa nin iska qoslaya muusana odagan muuse Soomaaliland haystana uu khiyaameeyo isagoo maalinta koose Djibouti la fadhiya oo kafee la cabaya oo iska qoslaya illa muuse wax khiyaameeyo kaga baxay oo kaga baxo ka xaraabaystay markii dambu baraarugay hatta kan reer khaatuma u imaanaya Axmed Macalin fiqmad qana madaxweyne ee saacadka soo madarag wasaairka arrimaha dibadda kala dujire wuxuu ka xanaaqay labadoodu way wada socdeen muuse hoos fadhiyeen iyo Ismaaciil Umar Geelle illa isaaqo iyaga kaga baxay iyaga khiyaameeyay aaradii uu reer khaatuma hada u leefleefaya oo isaaq iyo baxtaas ku dir ma aha asxaan ma aha وفرق معي أصحابنا وياي سولو إدولدوي سولو قال سولو ور درويش وانكو سلامين هذا السلام عليكم هذا الكين قدالان كسوق قاري أنا قلبا ديدا شلنا رأينا قدر صدو إن شاء الله إن وحال إسكو هايستي إن محام إن برايم مينستر كالو سو دوين ويبودلان سو دوين ويلال بدن ميشاس كهاد لاي horta beenta ugu weyn faaftay 40 sano ugu dambeysay waxay ahayd Puntland kursiga ayay diidan tahay oo la siiyay nin ogaadeena waa been la faafiyay absolutely been oo ma taqaana la hirgeliyeen way noqotay dadkii ogaadeena ay qaateen horta kursiga la yiraahdo ra'iisul wasaare qoladan special reer Puntland ka soo jeedo 100 mar ay soo qabteen kursiga naguma cusba soo moogidin kursigan 100 mar aan soo qabanay asagoo waliba nin reer Puntland oo joogo Cabdiweli Gaas ha noqdo waa kuwii ugu dambeeyay Cabdirashiid Cali Sharmaarke asagoo joogo Puntland mar walba way ka dirireysay maxaa la yiraahdaa kuwaas ayagoo fafadhiyaan meesha haddii taariikh dib loogu noqdo marka su'aasha taala meesha waxay tahay maxaa keenay inay Puntland mar walba ka dirarto meeshan qofkii soo fariistay dasamaata qofkii fariisto ama reer Puntland ha noqdo ama daarood ha noqdo ama wuxuu doona ha noqdo maxaa keenay Puntland mar walba waxay ku doodaysaa sharciga ku doodaysaa markii madaxweynaha uu qabsaday Xasan Sheekh 2022kii maxaa la yiraahdaa maanta ugu horreysay xamle November inay ahayd madasha qaranka la qabanay November dani wuu joogay dani wuu ka qayb qaatay madasha qaranka aad uga qayb qaatay maalintaasina maanta la kala qaatay maxaa la yiraahdaa buugta la kala qaato meesha lagu kala dhaqaaqay maxaa keenay ilan Xamza wuu joogay hadduu Xamza uu ka xun yahay muusan tagaanba maxaa la madashaas muusan fariistan laakiin waa la wada tagay iyadoo la wada qoslaya meesha la wada tagay maxaa meesha keenay in lagu kala dhaqaaqo waxa meesha keenay in lagu kala dhaqaaqo waxay ahayd dastuurka wuxuu ahaa saldhig dastuurka Xasan wuxuu yiri dastuurku waa bedelayaa حسنا دستورك حق وماله إنه بدلو إنه دمستره وحق وليه إما هين إنه بدلات دمسترك والله وحق كلا دبن دستورك سالوجو سو كلا دقائق حمزة حسن وشقية ما دام لوضي كلا قاتين كسوت مدحونا وحيري أنيقا وحن لا صوت الشناي إلا أنا وحن كيما هذا قبل كان لا صوت الشناي وحيري هذا ندي كوسو ولا يا دني وبحي ولا صوت الشري بقولنا وحيتر أنا مقابل كانوا إنت السور كلا بدلو هالوجو سو نقد إن لا دمسترو horta dastuurka ka bilaawata dagaalkan kamaysan bilaaban kursi in aad arana kursiga nagu cusbad dadada ku cusub yihiin wax weyn la tahay mooy ana kursiga nagu cusb in aad wiilka dhahayo Soomaaliland meel istaagtay afarkeedu waa caadi yahay Puntland waa inay warkeeda cadaysa in aad aniga Soomaaliyan ahay Soomaaliga lagu sheega waa aniga soo moogid
ha aniga kursi iyo ma liga macsan karo wadanka ligama bacsan karo waxay rabaan inaan dhaw aniga wadanka waa ka go'a xaggan istaagi qofkan kaliya challenge meesha lagu jiraa challenge-ka ka qayb qaado inaad dib ma laha laakiin inaad tiraahdo wadanka waa inaad ka goosata ama aniga waxaan dhaw waa inaad ii marisaa no waxaa tiraahdo lagu marinayo waa lagu challenge gareynayaa waa inaad miiska soo fariisataa waa inaad sharciga ku socotaa waayo xasan sheekh waa ninka dhahayay axmed madoobe xaqu u leeyahay inuu doorashadiisa qabsado xasan sheekh uu ahaa markuu farmaajo joogay ninka sharciga ku dheganaa dhahaya waa in maxaa liyaa dowlad goboleyaasha lasoo fariisiyaa waa in la wada hadlaa asuu ahaa maxaa isbedelay marka kursiga markuu soo koray maxaa isbedelay de wixii uu farmaajo sameynaya unbuu sameeyey copy and paste oo caadi ah copy and paste inaad waa lagaa diidaya gacantaa lagu qabani no waa lagu leeyahay maxaa hadda darwiisha waxaa tiri yaan lala hadli axmed waa sharci daru meesha ku joogaa axmed sharci daro hadduu meesha ku joogo danina sharci daru ku jooga in adeer dani qof la hadla ma jiraa qof yiraahday maxaa doorashadaadii anagoo naga wargelin maad qabsanin ma aragtay no because xaqu u leeyahay dowlad goboleed kasta inay doorashadiis asaga qabsada xaqu u leeyahay xasan kama hadli karo doorashadaas waayo waxa keenaysa waxa waay xasan shalay wuxuu ku doodayay xaqii uu ku taagnaa uu ogaa dastuurka si u shaqeynayso dee markii uu kursi ku fariistay munaafiq buu noqday wuxuu yiri aniga dee dhageysta anaa hadda kursi ku fadhiyo wuxuu sameynaya farmaajan sameynaa taasna laga aqbalaa in adeer marka waxay meeshan ku cadeynaysa horta powerful inay tahay Puntland uusan ka hadli karin xasan sheekh doorashadeeda isay u qabsanayso annaga marka waxaan aragnay waxaan inay soo socdaan ninkan xamsahan aad ka daba ordaysaa waa ninka xabadaha u qaatay wadankiisa uu yiri waa soo baabi'inaya waa soo burburinaya uu geeyay maxaa la hub uu geeyay askari ciidan raas kamboni frisi inaad ninkaas aad rabtaa in aniga gurigayga ka no meeshan dastuura la isku haystaa shuruuca la isku haystaa la iskuma haysto kursi waa la kala qaaday waa la kala faa'iiday waa nin walba meesha soo fadhiya laakiin dastuurkaas shuruucdaas la isku haystaa